labada guddi ee min koob iyo afartanka ah ee uu prime ministerka Ethiopia soo saaray iyaan doonayaa inaan ka hadlo kuwaasoo ah kuwa laga reebay Soomaali sida aanu aragnay laba qof oo kaliya ayaan ka aragnay taasina waxa weeyeen arrin gaf ku ah Soomaalida guud ahaan maadaama ay Soomaalidu tahay dad badan oo ummadda saddexaad ee tirakoobka Ethiopia ummadda saddexaad ka ah guud ahaanna dhulka la isku hayo meelaha la isku hayo xuduudada la isku hayo ay ummadda Soomaalidu tahay kuwa ugu badan uguna xuduud dheer sidaa daraadeed loo baahan yahay dad ku dhashay meesha oo karti u leh iyo aqoon inay ka qayb galaan guddiga qaybtoodana ka qaataan si aan loo miidhin ama loo bahdilin Soomaalida xaqeegana loo qaadan talabaad guddiga dib u heshiisiinta waxa loo sameeyay rag aqoon badan iyo rag odayo khibrad badan iyo boqorro iyo ogaasiyo intaaba Soomaali way leedahay laakiin waxa lagu daray qof kaliya iyagoo laga reebay dadkii u baani lahaa Soomaali ama matali lahaa Soomaali xaqeegana eegi lahaa marka ma kuwa kale xaqooga eegaya taasi waxay ka dhigan tahay meel loo samaystay si Soomaali looga adkaado ama loo baabi'iyo xaqeega inaa loo aaba yeelay sidaa daraadeedna ay tahay wax calculated intention of Somali people yaanu arkaynaa waa intentional ayaa looga reebay taana ma yeelay wax badan ayaan ka cabanaynay haddaan Soomaali nahay mar kastaba inaa meeshii ay Ethiopia xaq ku leedahay ama lagu ururiyo ama wax laga doonayo inaa Soomaalida la iloobo ama laga tago marka taariikh ahaanna waxa Ethiopia oo ahayd Soomaali adeer bay u ahayd walaal uma ahayn imika tani dhacday waxaan u arkaynaa adeernimadii jiri jirtay in ka ooyeynay inaan iyadiina waayayno sidaa daraadeed waxaa nagu habboon inaan tashanno Soomaali inay tashato oo arrintaa si fiican uga baaraandegto qaybteedana ka qaadato soona ceshato ama ku dagaalanto xaq ay ku leedahay Ethiopia